ayadan waxay cadeynaysaa dadka oo dhan oo cadeynaysaa in qof adhaya oo adduunka ama dhulka dushiisa joogi doona uusan jiri doonin qof walbana waxa ka dambeyn doono sida ayadani ay tiri waa meel u dhaxayso adduunkii ay joogi jireen iyo aakhirada ay u socdaan aakhirana ma joogo adduunkiina waa uu ka tegay wallaahi waa nolol ka duwan midda dhulka dushiisa ka jirto warhoy qabriga wax u diyaarso warhoy qabriga wax u diyaarso warhoy qabriga wax u diyaarso naftayda iyo naftaada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alxamdulillaah والصلاة والسلام على رسول الله maanta waxaan halkan u joognaa in aan macsalaameyntii ugu dambeysay mooge khaliif xade mataqaanaa gurigiisii aakhiro ugu horreeyey aanu ku hoyno mooge wuxuu ahaa nin aad u qiimo badan buu ahaa nin dadka oo dhan ay jecel yihiin buu ahaa nin gacan furan buu ahaa inta qof oo u gacan qabtay lama xisaabi karo taariikhdiisa waxay ka soo bilaabatay ilaa iyo 91dii buu wuxuu ka bilaabay meel yaroo xalwada ayuu bilaabay ilaa iyo heerkaanu soo gaaray maantana alxamdulillah hadduu xoolo ay wax tarayaan xoolo waa u hayaa dadna waa u ka tagay waan u tacsiyeynaynaa inta taqaana iyo annagoo dhan baa u tacsiyeynaya ilaahay naxariis iyo janno ha siiyo nin aad u qiimo badan buu ahaa intaasaan kaga baxay assalaamu calaykum bismillaahi raxmaani raxiim kullu nafsin daa'iqatu lmowt qof kasta waa dhimanayaa allah u naxariiso mooge khaliif intuu ka tegayna sabar iyo iimaan allah ka siiyo annagana sabar iyo iimaan allah naga siiyo wuxuu ahaa nin iskii u shaqaysta oo soomaaliyoo dhan ay isugu mid tahay oo aan kala sooc iyo qabiil iyo jirada soomaaliya ku dhacda aan aqoon ilaahay waxaan uga baryaynaa in jannada alla u qaboojiyo una duceeya dhammaantiin hana la cafiyo kulligeenna waa naga cafis ummadda uu tiiqiinay iyo in allaala intii uu gacan qaban jirayna inay sabar iyo iimaan alla ka siiyaan ilaahay ka baryaynaa dhammaanteen buu naga dhintay waana u tacsiyeynaynaa carruurtiisa iyo xaaskiisa annagana waa isu tacsiyeynaynaa waa naga dhintay keligood kama dhiman wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaan u taagannahay geeridii mooge khaliif xade waxaan ilaahay ooga baryaynaa inuu jannadii firdowso geeye duqmooge wuxuu ahaa qof qabiil iyo wax aqoonni ma ahayn dad badan buu soo gacan qabtay dadkuu gacan qaban jiray ruux walbaba masaakiinta asaga gacan qaban jiray marka waxaan ilaahay ooga baryaynaa inuu jannadii firdowso uu geeye ehelkiisa iyo xaaskiisa iyo maamadii ilmihii uu ka tagay kulli tacsiyad baan u diraynaa aniga maxamed baa laydhaha laakiin waa dadkii asaga waxaan ka mid ahay dadkii asaga uu gacan qaban jiray marka insha allah ilaahay naxariista janno inuu ka waraabiya ayaan ilaahay ooga baryayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت waxaan rabaa horriyo horaan in halkaan uga tacsiyeeyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo adagu sida gaarka uga baxay intaas kadibna waxaan uga tacsiyanayaa Soomaali weyn mooge khaliif xade taariikhdiisa halkaan laguma soo koobi karo nin qiimo badan buu ahaa ilaahay waxaan uga baryaynaa hoygiisa inuu janno ka dhigo nin odayo wuxuu ahaa gacan furan buu ahaa nin odayo wuxuu ahaa aad iyo aad sadaqada ula baxa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga baryaynaa khayrkii iyo sadaqadii iyo acmaashii uu hormarsaday inuu ilaahay uu gurigiisa janno ka siiyo
dhammaanna waa uga tacsiyanayaa bahda Universal TV-na aad iyo aad baan u salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. aniga magacayga Maxamed Mukhtaar lahaa adeer mooge adeerkay waxaan aad u tacsiyanayaa dadka dariska oo suuqleyda aan ka mid ahay aniga hadda just waxaan u maleynayaa kariibu 8 sano 9 sano darisnahay runtii nin aad u wanaagsan oo khibrad ku siinaayo ma garanaysaa ku dhahayo inta xaga ka toosi u ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu baryayaa ilaahay inuu iska cafiyo maanta waa nin maskiin ilaahay u baahan anagana ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay gadaashiisa inuu nama fidneeyo kadalika wiilashiisa oo tacsiyanayaa maamada eeday kadalika u tacsiyanayaa waxaan leeyahay Poleni inta soo qabasheen waxaan leeyahay ajar sanadaha ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa ilaahay inuu iska cafiyo maskiinka ilaahay u naxariisto dambigiisa dhaafo adduunyo aakhiro sadaqadii iyo wanaagu geystay oo hatta ma garanaysaa dadka uu qaban jiray ka ahaydna ilaahay waxa ugu baryayaa maanta inuu ilaahay xasanaadkiisa uu siiyo ayaan ilaahay ugu baryayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaahi raajicuun waa u tacsiyeynaa adeer mooge samri waan Allah naga siiyo familka uu ka baxayna insha Allah samri waan Allah ka siiyo nin wanaagsan buu ahaa waan u duceynaynaa jannada ilaahay inuu ka waraabiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. إنا لله وإنا إليه راجعون وحنت وتعسينا دمان رير موجة خليف حذي بوسكو مزي موجة كبحي وحا إلهي كبرنا الجنة إنه لا كورابيو قعنت سميذ إنه لا يكسي كتابك سبحانه وتعالى أجر إيمان إله نغسي دتك سوق بقلت قصهان تي في قاعين فرق تي في جبران تي في. الصلاة والسلام على الله نبي بعده مركو ورا سبحان الله إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهن يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور. حاليا هي أبيك الله من حرسته. بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون walaalkay mooga qalif Allah u naxariisto walaalkay buu ahaa igayar alxamdulillaah rabbil caalamiin islaamkana waxaan u sheegay ummadda islaamka nin baa mushtari waa iska dhib badan yahay hal iska soo cafiyo ninkii wax ku sheeganay oo lacag baa laga qabaa iyo wax baa laga qabaalena hanoo imaado rag buu dhalay raggii dhalay baa jooga anna walaalkiisa aan hanaloo imaado waxaana ka codsanayaa muslimiinta meel ay joogaanba dhammaan in la cafiyo cafis baan codsanayaa insha Allah dii ilaahay yiraah. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولا ليال ولا الكنجموجي خليف إلهي أو نحريستو إلهي أو نحريستو قبرك الله نوريو martidii la jecel yahay oo la marti qaaday Allah ka dhigo awlaadii ehelkii uu ka tagayna sabir iyo iimaan Allah ku irsaaqo awlaadii uu ka tagayna sabir iyo iimaan Allah ku irsaaqo ducada baa wax u taraysa waan duceeyna haddana waa loo duceeyni doonaa annagana wadada baa ina sugaysaa meeshaas loo wada socdaa ninkii maanta noolna berri ma noolo nin walba inaad diyaar garowdo oo sahay aad qaadato sahaydana waa camalkaada suuban baa sahay noo ah adduunyadaas laga tagayo oo lagu daalayo wax faa'iido ay leedahay malaha wax qabri kula tagayo oo qabri kula gelayo camalkaada jira walidaa buu yiri rasuulkeena qofka markuu dhinto saddex baa raacda oo qabriga u raacda camalkiisa wuu raacaa maalkiisana wuu raacaa ehelkiisana wuu raacaa laba way soo noqonaysaa oo ayaga meesha kuma baaqi noqonayaan way gadoomayeen hal baa haraya buu nabigeena ويبقى عمله عملك بهريا اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه إله عملك أصوبه إله مرتدي الله مرتقاده ولجع عليها إلهي وكدك إله ولالك نقاون حريصه أولاده وكتغين سبر إله كوي رزاق كان مقان يكوي جوغان بإله وإمامة رشاو إله سبر كوي رزاق إله وأنك نقادا شوضا قادا شيسا نفذ ميني اللهم اجعل قبره حفرة من حفر لا تجعل قبره حفرة من حفر النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة إله قبرك النور إله قبرك واسع إله قبرك النور كي لما ارتقاد لسو دوي إلهي وكيل إلهي قرقي سفر دوس إلهي وكيل إلهي وكيل
annagana ilaahay gadaashiisa nafidmaynin waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. bismi illaahi raxmaan raxiim. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. marxuumka wuxuu ahaa aabbaheena Mooge Khaliif Xade. waxaan leenahay ilaahay samir iyo imaan naga siiyo iyo eheladiisa inta kale. macnaa adduun waa laga tegaya insha allahu tacaala. waxaan ka baryaa inta janno waasac ilaahay u dhigo. annagana waxaan leenahay kuwii gadaashiisa fidnoobo ilaahay naga madhow insha allah. Khaliif Xade oo ku magac dheer Mooge wuxuu ahaayo walaalkayo marna aabbahayo. allaha u naxariisto. muddo 25 sano ayaan walaalo ahayn. dadkiisana waxaan ilaahay uga baryaa inay samar iyo iimaan ilaahay ka siiyo. halkan waxaan uga tacsinayaa dhammaan ehliyadii uu ka dhintay reer Xade, reer Maxamed Yuusuf, ehelkoo dhan dhammaan tacsiib baan gaarsiinayaa anigoo ah Abuukar Xuseen Diiriye Mooge walaalkiis sallallahu calayhi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الرحمن شيخ جامع حاج حسين ولنا أبين مانتي لا ونحرسته وكنت مقالة نيروبي وكسودنا الحمد لله رب العالمين. معنا تعسينا يا دتكو كودا تجي وأنا أحتاج كتر سنة عرضت كجرنا كل جودة سوري ما أنا لا نقصي كل جنة وذبحنا.